meeshaan dhinacayga waxaa fadhiya oo yaala xabiibullaahi maxamed salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi wacalaa asxaabihi ajmaciin. أخوة الكرام، waxaan ka jawaabayaa oo meeshaan saxaafaduhu igu yimaadeen been abuur lagu been abuurtay oo wax aan jirin ah, sal iyo raad midna aan lahayn ah. dadku waa hadlaa, hadalku marka mafhuum iyo manduuq buu leeyahay. dadka qaar waa ahlu xaqiiqo, qaar waa ahlu baadin, qaar cilmu daahir bay ku hadlaan, qaar waxay ku hadlaan cilmu dhanni. waxaa fiican marka qofkii hadla in la yidhaahdo war shiikhow saasaan aragnay maxaa kala jeeda. haddii qofba meeshuu raba la aado, qofba meeshuu raba u fasirto, hadda waxay noqonaysaa waxaa la keenaya wax mawduucii laga hadlaya wax ka baxsan. sida hadda wakaana fi lmadiinati 9 rahadin markaan lahaa, dad noocaasa baa magaalada joogo sida ilaahay tilmaamahaya ah. marka muslimiinta dadka maqlahaya haddii alla kuu ron yahay waxay ogaanahayaan oo aan u sheegahayaa oo caddaynahayaa wixii loo sheegay haddaan wax wara kama hayo, lakin waxay soo gaartay oo hadda laysoo sheegay in warkaan ayri la bedelay. waxyaalaha la sheegay oo carada been abuurka anugu ma aanan oran, mana iga suurtoodo, mana oran doono hadda kabacdi. inkastoo hadda wax dambe kusoo qaabilahaya ay yihiin mustaqbal oo aan la warqabi karin, haddana sida ra'yiga ku jira iyo culumta aan leeyahay ma oran doono xataa hadda kabacdi. saxaafadda marka hadda ay su-aalaysaan iisoo daaya. sheekh, dad badan ayaa arrintan siyaabo kala duwan uga hadlay. marxaban. sawirkan hadda la sheegayo muxuu yahay, dadka faahfaahin ka sii. sawirkan oo hadda korkayga soo miyaa? haa, shiikhaygii weeye. waa shiikhaygii, waa murabbigaygii. haddii alla kuu ron yahay nin aad u maqaam weyn weeye, macnaa oo darajo weyn weeye, heeraa agtiisa darajo weyn ku leh. wararka qaar waxay tilmaamayaan in sawirkaas muuqaal laga duubay adiga inaad ku tilmaamaysid inuu yahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam. dadkuna ay aad arrinta u hadalayaan, mas-uuliyiin ka tirsan galmudugna ay sheegeen in baadil ay tahay arrintaa laguna soo qabtaa. nabi baa la soo wareegaa. taas weliga ma maqalba. waa sawir aan ku banaan xataa ma maqal, wal waa la soo wara iska dahay. galmudug waxay sheegtay in lagu soo qabto maadaama sida ay sheegeen gef aad u geysatay rasuulka. arrintaas taas aad waa ku ammaanayaa. haddayba xabiibka saas u xusuusan yihiin waa waxaan ka waayeene. anugu meeshaan ilaa 9 sano baan ilaahay xuskiisa u fadhiyey iyo xabiibka salawaadkiisa. marka hal qofoo galmuduga oo ninkaasi waa fiican yahay ma maqale, ma maanta ali hidaaya kusoo dejiyey khayr baa sheegaysaa niyo.